السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواad daawadayaal qisadeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa nabi kamida nabiyadii Ilaahay uu u soo diray reer bani Israa'iil. waa qisadii nabigii la oran jiray Yaxya ibn Zakariya. kuma ayuu ahaa nabi Yaxye? nabi Zakariya miyaa aabba u ahaa? ma isagoo 3 jir ah ayuu nabi noqday? u dambeyn ma waxaa dishay haweeney zaaniyad ah? su'aalaha iyo kuwa kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa. farsad daawade intaynu u guda gelin muuqaalka dhexdiisa, fadlan kommentiga ku soo qor qisada aad jeclaan lahayd inaynu kaga hadalno muuqaalka xiga. haddii aad ka heshay fiidiyowga, fadlan like saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. asxaabtaadana u sheer gareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. nabi Yaxya calayhi salaam waa nabi kamida nabiyadii uu Ilaahay u soo diray reer bani Israa'iil. waxaana nabi Yaxya dhalay nabi Zakariya calayhi salaam kadib markuu Ilaahay weydiistay inuu ku irsaaqo durriyad wanaagsan. waxayna haweeneydii nabi Zakariya calayhi salaam ahayd madhalays, balse Ilaahay wuxuu u hibeeyey nabi Zakariya iyo xaaskiisa wiil wanaagsan oo dahiran, wuxuuna Ilaahay u bixiyey Yaxye. nabi Yaxya calayhi salaam wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey dacwadii nabi Ciise calayhi salaam. waxayna ahaayeen nabi Ciise iyo nabi Yaxye ilmo habreed oo labadooda hooyo ayaa walaalo ahaa. waxaana la sheegaa in nabi Yaxye hooyadii mar kasta ku oran jirtay Maryam bintu Cimraan, ilmaha calooshayda ku jira wuxuu u sujuudanayaa ilmaha ku jira calooshaada. wuxuuna nabi Yaxya calayhi salaam ka weynaa nabi Ciise calayhi salaam 3 bilood. wuxuu ahaa nabi Yaxya calayhi salaam mid qoomkiisa ugu yeera inay caabudaan Ilaahay. wuxuu Ilaahay u xalaaleeyey inay sameeyaan wixii Ilaahay uu xaaraanta ka dhigayna inay iskaga tagaan. wuxuuna ahaa nabi cibaado badan, kuna booriya qoomkiisa inay caabudaan Ilaahay kana yaabaan. waxaana la wariyaa inuu ahaa nabi Yaxye nebi dumarka hawaysan oo weligii ma guursan. nabi Yaxya calayhi salaam waxaa loo diray qoom ku noolaa dhulka Shaam, gaar ahaan magaalada Falastiin. waxaana boqor ka ahaa nin la oran jiray Heroodis. nabi Yaxya calayhi salaam boqorkii iyo qoomkiisii ayuu wuxuu gaarsiiyey diinta Ilaahay. in badanna way rumeeyeen oo way adeeceen. boqorkii la oran jiray Heroodis wuxuu ahaa nin karaameeya oo qadariya nabi Yaxya calayhi salaam. wax kasta uu nabi Yaxya calayhi salaam uu ku yiraahdana wuu maqli jiray. boqorkii Heroodis wuxuu doonay inuu guursado gabadh uu dhalay walaalkii. waxaana la sheegaa inay gabadhaasi ahayd mid aad iyo aad u qurux badan, waxaana la oran jiray Herodiya. wuxuu weydiistay boqorkii inuu guursan karo gabadha uu dhalay walaalkii, balse nabi Yaxya calayhi salaam ayaa u diiday oo wuxuu ku yidhi Ilaahay uma xalaalaynin inaad guursato gabadh uu dhalay walaalkaa. si kastaba ha ahaatee waxaa arrintii ka xanaaqay gabadhii la oran jiray Herodiya oo waxay go'aansatay inay ka aargoosato nabi Yaxya calayhi salaam. habeen ayay wixii isku soo qurxisay boqorkii, waxayna horay u soo qaadatay khamro aad u badan. markii uu doonay boqorkii inuu xumaan ku sameeyo, way isku diiday oo waxay ku tiri, haddii aad hal wax ii samayso ayaad ii soo dhowaan kartaa. wuxuu ku yidhi, waa maxay? waxay ku tiri, waxaan rabaa inaad ii keento madaxa Yaxya ibnu Zakariya. markii hore uu diiday boqorkii,
balse wuxuu ahaa boqor ku fidnoobay dumarka. wuxuu amray ciidankiisii inay u keenaan madaxii Yaxya bnu Zakariya, sidaa ayayna ku dileen nebigii uu Ilaahay u soo diray. waxaana madaxii hadiyad ahaan loogu keenay zaaniyaddii. maalmo yar kadib waxaa ku soo duulay boqorkii boqor kale oo gaal ah oo la odhan jiray Tukhtansar, wuxuuna baabi'iyey boqortooyadoodii. waxaana la sheegaa inuu ka dilay 7,000 oo qof. riwaayad kalena waxay sheegaysaa in qoomkii dilay nebi Yaxya calayhi salaam uu Ilaahay dhulka la gooyey. balse Ilaahay ayaa og sida saxda ah oo loo dilay nebi Yaxya calayhi salaam. waxaana laga wariyaa Ibnu Cabbaas, Ilaahay haga raali noqde, inuu yidhi, nebiga ayaa wuxuu yidhi, maa min axadin min waladi aadama ilaa akhta'a aw hama biqati'atin laysa biyaxya bnu Zakariya. ma jiro axad ka mida ilmihii nebi aadan ilaa wuu dembaabay ama wuxuu hamiyey inuu sameeyo dembi, marka laga reeba ma ahane Yaxya bnu Zakariya. allaahu aclam. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.